بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalahay dhammaan waan idin salaamay meel kasta aad joogtaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inta igu xiran iyo inta aan igu xirnaynba waa idin salaamay waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka ugu qaalisan maasha Allah tabaarak raxmaan maanta waan faraxsanahay waxaan idin la qaybsanayaa farxadda maxaan ku faraxsanahay maasha Allah tabaarak raxmaan maanta waxaan buuxiyay shartul awwal shartigii koobaad ama maxay tooday waxaan buuxiyay kunkee ما شاء الله تبارك الرحمن آدي آد باو مهد سنتين فيديو كان وحان أصوات دوبي إذا كدرتينا ومهد علين إن عندكم مهد عليه وعي سمان آدي آد باو مهد سنتين جزاكم الله خير الجزاء waxaa idinku mahad celinayaa sida wanaagsan ee sharafta leh ee walaaltinimada leh ay la socoteen ee ii soo gaarsiiseen maxay tooday intan waxaan rajaynayaa intan iyo inka badan inaan isla sii joogno insha Allah cuqbaal 100,000 inaan waxaan rajaynayaa inaan 100 kuna celebrationka wada sameeyno sida hadoo kale maasha Allah maanta waxaan noo wada cake yar simple ah oo aan ugu talagalay farxadda kunka kee inaa maxay tooday idinkula qaybsado idinku mahad celiyo marka koobaad Allah ayaa mahad iskale mahad dhamaantii Allah ayaa iskale oo inoo suurta galiyay inaan buuxino kunka kee marka xigtana dhammaan dadka walaalahayga igu xiran ayaa maxay tooday iskale mahad iyo familkayga dhiirigelintooda maasha Allah tabaarak raxmaan dhammaantiin wanaag baan idin hayaa wanaagiina Allah awaal marintiina jannaha ka dhigo maanta maxay sameysanaynaa cake yaro cake chocolate oo simple ah ayaan sameysanaynaa wasa arkayseenba waxaan isku soo garaacay 4 xabo ukun ah iyo koob sokor ah ما شاء الله تبارك الرحمن marka waxay simple ku noqonaya keega marka isku soo baabiiso sokorta iyo beedka waayo keegaaga wuxuu noqonayaa keeg afka ku dhalaala ma sha Allah daqiiqdii isku dhagdhagmayso waxaan kugu dhahay wuxuu noqonayaa keeg kala daata marka san u sameeyso waana dariiqo fudud marka waxaan sameeyay koobkii sokorta iyo 4 xabo ukunta ayaan isku soo dhameeyay oo isku soo shiiday markaas ku soo baabeen waxaan ku daray nuskoob maxay tooday koobka saliida ah nuskoob waliba waxaan ka reebay ilaa 6 qaando oo waaweyn oo saliida ah ayaan ku daray ma sha Allah kulayla ayaa jira markaas saliida badan ma fiicna oo intii la iska yareyn karo la iska yareeyo qofka kasta subag baad ku darsan kartaa badar baad ku darsan kartaa wax alla waxaad jeceshaad ku darsan kartaa ma sha Allah saliidii markaan soo dhaxgeliyay khaliidkeena ama kuntii sokorteen isku soo baabiina ay waxaan ku darsanayaa koob 3 meelood meel dhiman adigu koobka wax yar baan ka reebay caanaha ما شاء الله inta markaan saa isugu soo qasano maxay sameeynaa halka waxaan ku soo shubtay 2 koob oo koobka shaaha lagu cabo oo bur ah waxaan ku soo darayaa 2 qaando oo cacao powder ah adoo qaadada teaspoon ayaan ku cabirayaa laakiin iyadoo full ah weeyaan ما شاء الله waxa adoo 1 qaando maxay ta teaspoon oo 2 qaando ah oo full ah oo cacao powder ayaan ku soo darayaa intaas ayaan isku baabiinayaa haddii aad rabtid burka waxaad ka dhimi kartaa inta aad ku dartay cacao-ga in leeg baad ka bixinaysaa 2 koob 2 qaandaad ka bixinaysaa haddii kale it's okay mar hadduu qaadayo saxankaad ku shubanaysaa waxa inaad ka bixiso muhiim ahaan ما شاء الله تبارك الرحمن intaas ay hadda is dhexgelinaynaa waxaan sameynaynaa gacanta ayaan ku qasanayna muhiim ahaan inaan ku qasano mar haddii sokorta isku baabi'inay muhiim ahaan makiinadii lagu qasayo ku qasno waxaan ku daray wax yar oo cusbada waxay siinaysaa tasti dhadhan yar bay siinaysaa waxaan ku darayaa vanilla si ay u baabi'iso urta beedka hal furo vanilla ayaan ku darayaa ما شاء الله intaas markii insa sameeyno ayaan sameeynaa daqiiqda ayaan ku daraynaa nus marka daqiiqda 2 qaybood baynu qaybinaynaa ilaa hadda baking powder kuma aanan darin waa baking powder-ka waxaan ugu dari waayay markaad saas u qasaysid uu khamiir dhacaya keegaaga uu ka degaya wuxuu noqonayaa keeg ka fariista markasta waxa fiican keegaga markaad sameynaysiin markaad nuska u dambeeyo marinaysaan daqiiqda ina ku darteen baking powder-ka hadaa rabtidna daqiiqda waa ku dhex qasi kartaa
wax dhiba ma lahan. Laakiin anigu this way ayaan isticmaalaa. waxaan ku darayaa teaspoonka 2 qaando oo teaspoonka oo baking powder ayaan ku darayaa oo buuxa. maasha Allah si fiican ayaa maxay tooday ugu shaandhaynayaa soo igu wada gaaro keega oo dhan aanu burburna iga yeelanin. intaas ayaa haddana soo dhaxgalnayna. markaad baking powderka ku darteed hal dhinac u wareeji keega, hal dhinac waa maxaa dhacay wuxuu ka noqonayaa hadii kale oo ka dagay hal dhinac saa ugu wareeji. hadaad aad maxay tooday qasid ama walaaqa ku badisid oo ka khamir dhacaya. marka tartiibto aad hal dhinac u wareejinaysaa. maasha Allah tabaaraka raxmaan sida quruxda badan ayuu keegeen inoogu soo baxay. waa isu soo dhaxgelinay intii hal dhinac meesha ugu wareejinayna dhinac walba maaha hal dhinac aan ka wadayna saas aan wareejinayna. wax burbur ma lahan keegeen maasha Allah. waxaan rabnaa keeg weyn oo hadana dhalaalaya burburaya yacni jilicsan inuu noqdo oon xajiinahayn. waa arkaysin keegeen jaahis weeyaan maasha Allah tabaaraka raxmaan. waxaan sameynaynaa aan soo qaadanaynaa saxankii loogu talagalay. saxanka markasta hadduu saxankaagu yahay non-stick waa okay. hadduu aad ka baqayso oo muddo isticmaalayso kale waad ka baqayso inuu kaaga dhago kale warqadda loogu talagalay in foornada wax lagu gashto warqad shamciga la dhaho ayaad soo qaadaysaa. marka hore waxaad saxankaad marinaysaa subag yar oo badh maxay tahay blue band ama subag alaalakaad haysatid. haddaad ka sixinka marisan maasha Allah caraf yar udgoon ku siinaya. marka blue band kan soo qaaday marka hore waxaan mariyay saxankaan mariyay warqad aan leekaysiyay ayaan haddana ku soo riday. arkaysin maasha Allah saxankeena waa kaas jaahis inoogu yahay. keeggeena aan ku soo shubanayna waxaan rabnaa keeg weyn oo maasha Allah haddana jilicsan oo saa u kala daadanaya inuu noqdo oo aan cajiin inaga noqon. laana daqiiqo haday badantay keega badanka oo si fiican loo qasin muxuu noqonayaa isku dhagdhagaya dhujuq noqonaya cajiin noqonaya. marka sanoo kale simple ka hadaad u qasatid keegaagu wuxuu ku noqonayaa keeg maasha Allah waana dariiqo fudud. maasha Allah baaquliga waa la dhaarinaa ku dhaxba lagaga tagi maayo waxaas oo dhan oo lagu soo wada shubaa. maasha Allah saas oo jaahis inoogu yahay. foornadana markasta hadaad rabto keegaagu inaanu kaa degin oo ku kala kaco waa inaad foornada sii shidatid waa inaad ku taagnaato waa kulaylku sii noqoto iyadoo kulul markaad geliso keegaagu maasha Allah ku noqonaya. maasha Allah waa tan keeggeena markaan foornada ka soo saarnay sida quruxda badan ayuu inoogu soo baxay. waa arkaysin maasha Allah indhu leeyahay xitaa unkiisa waa arkaysin. waana maxay tuu jilicsan yahay soft weeyaan. waxaan sameynaa marka laba qaybood ayaan u qaybinaynaa. waxaan soo qaatay hal xabo oo dream whip ah hal bogos oo kaliya waxaad ku soo darsanaysaa haddii aad haysatid nutellada 2 qaado nutella ama maxay tooday chocolate powder ka ciyalka caanaha loogu daro 2 qaando ah ayaad ku soo darsanaysaa. waxa la wixii adiga aan kakao caadiga ma ku daraysid laakiinse qaraar buu ka noqonayaa. maasha Allah tabaaraka raxmaan keegina 2 qaybood ah soo kala jaray waa arkaysan sidoo soft u yahay dhexdiisa wax daqiiqa ma lahan yacni indho yeeshay. kaas ayaan dhexda kaga shubaynaa karaale ahaada salaadkii maqrib ayaa la iga eedaamay marka qaybta sare markaan shukulaatada iyo keegii aan saarayay maan maxay tooday duubin oo waan degdegsanaa
المهم كيك لويه waxaad korka kaga shubanaysaa waxaad gudaha kaga shubanaysaa waa qof iyo wixii u haysto aniga waxba yaraatay wixii gurigayga yaalay un baan maxay soo qaaday waan isku daray waxaad ma aragtay oo waxaas aad haysatid un baa wax laga sameystaa markasta haddaad rabtid kor iyo hoosba waxaad sameynaysaa intaad 3 qaybood ka dhigtid ayaad buufinaysaa kareemka kor iyo hoosba waad ka marinaysaa si allaala si aad jeceshahay wixii allaala wixii adigu aad ku fudud ee aad ku quruxsan karto ayaa muhiim ah maasha Allah tabaarak raxmaan waxaan ku soo darsanaynaa kareemkeeni uu jilicsan yahay waan ugu talagalay marabiino adeeg iga noqdo waxaan rabaa inuu maxay tahay maasha Allah soft isla sii noqdaan maasha Allah tabaarak raxmaan sidaa markaan saa u soo sameeyno waxa soo qaadaynaa qaybtii kale korkayaan ka saaraynaa haddaad rabtid shukulaato haddaad haysatid waxyaalaha allaale wixii mukasaraad aad haysatid dhexdaad kaga shubaysaa soo hadhow tooleeheen kuugu noqdo maxay tahay keeg oo dhexda wax ugu jiraan wixii aad rabtid haddaad rabtid dhexda wax khudaar haddaad haysatid dhexda kaga guranaysaa yacni waxba ma diidaayo maasha Allah aniga daboolkiisa qaybta kale aan soo qaaday waan ku daboolayaa aasif waan ka xumahay inta kore markaan saarayay ma aanan duubin waayo salaadkii maqrib la yaadaa misaan idin sheegay karaale ahaada keegina saan inoogu jaahis yahay intii yareeda kasoo hartay shukulaadka yaraan dhexda ku shubay in hareeraha kaga shubay dhexdana sokor cad baan kusoo buufiyey shukulaato yar oo aan haystay oo ah shukulaato oo kuraad ah aan dusha ka saaray yacni wixii aan haystay un baan maxay today aan ku sameeyay dhinacyadana maxay today jawsal hindiga ama qumbaha qalalan ayaan maxay today kaga shushubay sida quruxda badan ee simbalka ee aan waxba haba yaraatay hawlo lahayn ayuu keegeena ku soo baxay waxaan rajaynayaa inay ka heli doontaan waxaan leeyahay ku soo dhawaada la'aantiina maan gaarneen kun insha Allah waxaan rajaynayaa keega ku xigaya axlaamta ilaahay agtiisa yacni wax ay maxay ka tahay malahan inaan boqolka kun insha Allah in ihtifaal wada sameyn doono hadii ilaahay ka dhigo ilaahay nagu gaarsiiyo nabad iyo bashbash iyo barwaaqo easy weeyaan hadii aad wax go'aansatid waxa fiican inaad ka miro dhalisid waxaan rajaynayaa inaan rajadeeda ka miro dhaliyo insha Allah idinkuna aad iyo aad baa ugu mahadsantiin sida wanaagga badan markasta ila socotiin halka waxa ku qoran Cabdiraxmaan Janaal mabruuk ala 1000 mushtarik uqbal 100 mushtarik yani waa hambalyo oo ah kunka subscribe waxaan rajaynaynaa insha Allah in boqolka subscribe na ay ku wada ihtifaal sameeyno amen celebration wada sameeyno maasha Allah waxyaalaha yaryar haysatida simbalka oo si yar decoration ugu shushub shukulaatooyinka yararka ayaga korka lagaga daadiyo waxaba yaraatay wixii gacantayda soo qabatay baan ku shubay waxaan u eegay malahan ama waxyaalo siyaadahan isugu dhibay marka waxaan leeyahay dhammaantiin hambaliyada waa idin diraya kulligiin waa ku mahadsantihiin waayo maanta kunka waxaan ku keenay waa idinka sababtiina sax marka waxaa la dhahay qofkii aan u mahadnaqin ma la yashkuri naasa la yashkuri ilaha qofkii aan dadka u mahadnaqin Allahna uma mahadnaqo marka dhammaantiin waa mahadsantihiin jazaakumullahu khayral jazaa ayaan idin leeyahay ku soo dhawaada keegeeni ما شاء الله تبارك الرحمن ورقة ورقة هذه سمبل ورقة وحياة دونتو عياد كسو قرنيسا ماذا حسرنا وحكى لي بهالكو استكين كالكه لغو فندعلك أما استكين كقف بسو يقانا لابا استكين بعدين ورقة ديان كتيري ما بوباهنا إن عجينة iyo waxyaalo kala doonan waxayna hayna la wax ka sameysana samaan ما شاء الله تبارك الرحمن keegayna waa kaas dhammaantiin khayr badan ayaan idin rajaynayaa waxaan rajaynayaa inaad like-ta iyo subscribe-ta iyo share-ka iyo comment